markii ugu horeysay ayaa bulshada Somaliland waxa ay la qabsanaysaa hab kale oo loo bixiyo kiisaska ama qaanta oo aan ahayn habkii hore ee qabiilka. kooxo ka mid ah bulshada oo kala jooga meelo iyo magaalooyin kala duwan oo dalka ah ayaa wadaagaya khasaaraha naf iyo maalba leh ee ku yimaada, waxaana talaabadan suuro gelisay shirkadda caymiska ama qaan wadaagga casriga ah ee Takaaful oo markii ugu horeysay Somaliland laga aasaasay sanadii 2013. markii hore dadku way la yaabanaayeen oo caymisku ka raagay laakiin maadaama imika 5 sano aan marayno dadkii si fiican bay ula qabsadeen, aad bay noo soo dhaweeyeen. markii hore waxay oran jireen sidee wadanka uga suuro gelisaa, waxaan macquul ahayn bay u arkayeen, laakiin maanta aad bay runtii ula qabsadeen, wayna ku faraxsan yihiin adeegayaga, waana lagu bogaadiyaa gudaha dibadba. waa shirkadii ugu horeysay ee bixisa adeegyada noocan oo kala ah bulshada Somaliland oo hore aan u aqoonin shirkadda noocan ah ama adeegyada qaan wadaaguna waxay ula soo qabsanayaan si tartiib ah. shirkadda Takaaful waxay bixisaa adeegyada caymiska caafimaadka oo ah adeeg damaanad qaadaya dhammaan baahiyaha caafimaad ee cid kasta oo iska diiwaan gelisa shirkadda, midka gaadiidka, socdaalka, hantida ku burburta dabka, xatooyada iyo caymiska badeecooyinka lagu raro maraakiibta badda iyo diyaaradaha haddii uu khasaare ku yimaado, sida uu sheegayo maamulaha guud ee shirkadaasi Takaaful Cumar Xaaji Xuseen Cumar. qorshaha fagorta waxa weeyaan in Somaliland dhinaca caymiska wada hesho si maalgashiga caalamiga loogu soo dhiirado. iminka in badan oo timid oo caymiska aanan muxuu ahaa runtii wax badan ka taray, waxaa ka mid ah qoladan sahminta shidaalka. qoliyo kalena way soo socdaan, waan wada xiriirnay, waxaan wixii anaga ka mas'uula, anaga bixinayna damaanadii, anaga cayminayna adeegiina, qalabkiina, shaqaalihiina iyo wax walba. waan ku faraxsanahay Somaliland iyo deegaan walba iyo gobol walba iyo wadan walba ka shaqeyno adeega iyo adeegyo ka wanaagsan ba inaanu qabanno. maalgelinta caalamiga runtii waxyaalihii hortaagnaa waxaa ka mid ahaa caymiska. maanta Somaliland way ka gudubtay. waxyaalaha kale doonayna waxaa ka mid ah inaan Afrika gaadhno dhammaantood. wadannada waxoogaa waa joognaa, laakiin aan dhamaystirno 2030 oo qaaradda Afrika hal wadan oo aanan joogin aanu jirin. dhulka Soomaalidu degto kale waan wada gaadhnay. waxyaalaha aan ka qabanayna waxaa ka mid ah oo iminka soo wadno caymiska xoolaha oo runtii abaaraha soo noqnoqonaya la caymiyo xoolaha, daaqa la caymiyo si dadkii xooluhu ka dhamaadeen haddii abaari ku timaado hadhow dib loogu iibiyo. waxaa meesha ka saaraysaa qofkii aayar hantidiisu intuu dab qabsado ama shil ku dhaco sidaa suuqa kaga baxay maalin gudaheed, laakiin ummadii way iskaashanaysaa, waxbay isku darsanaysaa, waxba la qaybsanayaa. haddii shalay uu ahaa dhaqankeenii hore tijaar inuu maanta ku caydhoobo 24 saacadood gudahood, iminka way ka gudbaynaa. waxa weeyaan qofkii waa loo celinayaa hantidiisa. hadday dhibi ku timid uu shalay tijaar ahaa, maantana wahaanaya, birina wahaanaya, dhib dee ilaahay kale inaguma keeno, laakiin intan kooban ee ku dhacda bulshadeena ee dabku ka mid yahay, shilalku ka mid yihiin, markabkoo ka dega alaabta la mid yihiin, alaabtoo lunta ay ka mid tahay oo runtii dad badan dhaqaale badan ka lumiya, arrimaha waa laga gudbaya. shirkadda ayaa waxa ay higsanaysaa in adeegeedu uu ka hirgalo guud ahaanba deegaanada Soomaalida. haddii talaabadan lagu guuleystana waxa ay bedelaysaa qaabkii hore ee bulshadu ay u bixin jirtay qaanta ama kiisaska culus ee ku yimaada. Nuruddin Culujoog, Ariel TV, Hargeysa.